xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Xasmaan Nuur oo warramay telefishinka caalamiga RTN ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan bariishadii ay dhawaan dhagax dhagan iyo sidoo kale kuwii ay dayactirka ay ku sameeyeen xogayaha arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya waxa uu yiri dib markii roobabkii guga ilaahay maadaa ka gadhay inoo shubay waxa soo rogay daadad aad u laxaad leh taariikhda xabaalana ku laho dadku waxay neerayno garan meena taariikhdeena ma baa loo jeedaa aad weyn xabaala jiri bay oo taariikh fogo inaan dhalano marka kaana ku laho xabaalana ku laho daadanta la maro meesha la maarag baa leeyahay dhaawacii soo gaarsiiyay bariijadii saddexda bariij ba dhaawacii soo gaarsiiyay haday tahay bariijkii weynaa ee deero iyo haday tahay kii China isku dhisay iyo haday tahay bariijkii aanu barigii dhawta xariga ka jaray bariij lagoodka ee ceelgooni marka run ahaantii laba bariishada madaxweynuhu ka soo jawaabay lacagtii feeskii u horeeyay markii uu soo diray lacag $500,000 soo diray $500,000 labada bariish oo weyn ay gabagabaygu arintoodu tahay bariijka yar ceelgooni aad ii sheegtay aad arabka kiisa ku dhajisay kiriiskaas sanadkii loo doon xariga ka jaray ceelgooni la yiraahdo anaga dhisnay afada biyaha dul maray gabigiisiiba ay horta qabaxada kamida jabiyay dabadna waaba kii qadar ilaahay ba ka dhaco qof ba ka dhaco kuba dhintayba waan xidhno si aan qofta maashi u marin horta bariishka waan xidhno dayactirkiisina waan kaga jawaabay marka horena anaga dhisnay imkana laga dayactiranayada warbaahinta ayaa ka weydiisay xogayaha dowladda hoose degmada Burco halka uu hadda marayo bariishkiis ku xidhay xaafadaha October iyo sidoo kale Balaasa halka uu hadda marayo marka run ahaantii uu bilaabay kaas magaalada Burco waa magaalo madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta ka dambeysay way sii fidaysaa togleerna waa la yirbo togan dheeri magaalada markay dhinacyadeedii socdo sii fido dabcan waxa loo baahanayaa isku tallow Balaasa wuxuu isku xidhayaa labada xaafadood ee xaafada la yiraahdo October iyo xaafada Balaasa wala xaafadood waaweyn ugu dambeyntii xogayaha dowladda hoose degmada Burco ayaa baaq u diray bulshada ku dhaqan magaalada Burco waagtiino golaha deegaanku wuxuu cod aqlabiyada ku ansixiyay in magaalada laga saaro xoolaha nool magaaladii xoolaha nool inaanu dadka dadweynaha halkan uga baaqnay waxaad moodaa inaan dad badan u dhaqaaqsin oo lo'dii magaalada wali lagu arkayo oo riyihii magaalada wali lagu arkayo dad badan oo u hoggaansan halkan iyagana uga mahad celinayna xoolahoodii ka saaray magaalada way jiraan waxaan leenahay kuwa ku sii dabada yar leh ee wali xoolaha magaalada ku haysta uma dul qaadanayno raxmada da'aysa waxa weey dadku waxay caadaysteen sida qaalibka inay ku shubaan ilaalihii oo soconaya qashinka la raaciyo oo dadku yiraahdaan biyaha soconayaan qashinka raacinayna taa macnaheedu waxa weey muwaadinku inuu ogaado qashinka muwaadin aad biyaha raacinaysa waxaad ogaataa inta guriga ay ka qaaday ku xigin budaad ku geey Cabdi Qani Baafo telefishinka caalamiga RTN magaalada Burco.